magacaygu waa Askari Cabdilaahi Diiriye ciyaartoydii hore ee gobolka Awdal ka ciyaari jiray muddo badan gobolka u soo ciyaaray runtii ana waxaan isku day ila tahay ama ay tahayba inaan ahay ciyaartoyga ugu cimriga dheer leh ee gobolka u soo ciyaara xulkii ugu horreeyay saftay wuxuu ahaa 2004 ilaa haddana waan ciyaaraa alxamdulillaah caafimaad baan ku ciyaaraa waan ku faraxsanahay inaan dhalinyarada ahaan aad iiga yaryarayd aan runtii la ciyaaro maanta waa maalin Jimcaha waa 5 February waxa halkan nagu soo booqdeen walaalaheen Somali Score oo niman wax badan soo kordhiyay dhalinyarada Soomaaliga Soomaalidu meel wala degto waa niman wax badan ku soo kordhiyay waxay ku soo kordhiyeen qofku isagoo gurigiisa jooga inuu ciyaartii ka socoto meel walba sidii live score-kii caadiga ciyaaraha Yurubta loola soconayay inuu qofku la socdo ciyaartoygu taageeray ula socdo xaaladiisa ula socdo in la saaray ula socdo inuu casaan qaatay ula socdo marka runtii wax badan bay ku soo kordhiyeen waa dhalinyaro aad iyo aad wax loogu baahnaa keenay wayna ku maadsan dhalinyaradaasi waxaan leeyahay maanta gobolka Awdal bay nagu soo booqdeen joogan inkastoo ciyaartii maanta baaqatay haddana ciyaaraha dambe ay nagala soo qayb gali doonaan dadka waaweyn ee garoonka tagi karin mobilkoogaas ay kala soconayaan hawsha iyo wixii ka jira balka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalkeen Samaroon gudoomiyaha horyaalada Somaliland runtii wax badan gobolkana koob markii koobka soo qaaday isagoo tababaro ka ahaa wax badan ka soo qabtay sportigana rajeynayay inuu wax badan ka qabanayo oo isbedelkiisu maanta uu gobolka Awdal ka muuqdo inuu halka ka sii wado insha Allah gobolada kalena kulliba dadka jooga baa sheegay oo isbedelku wax ka wada muuqda marka walaalkay Samaroon aad baan soo dhaweynayaa Cabdishakuur Ashkooreyo nimankii daad ku soo wada ciyaarnay muddada badan ilaa imikana wada ciyaarno isagana aad baan soo dhaweynayaa dhalinyartan isxilqaantay waxaan leeyahay inuu garab galo waanad ku maasantiin wax fiican dadku wada qabateen kullayna abaalka bilaadanku lagama hele tii Ilaahay ka weyneed baa jirta waana helaysan insha Allah waan maasantiin salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو راح لكم حق السلام يا ولا لها الصومالي سكور مركي حجنا وحن هلك السلام يا استغرام مهد علم جار السين يا ولا لسمرون أو يسوى قدومية هريالة الصوماليان الرهانتي يسوى صومالي سكور كمان تحكي شكين دونا أمان فاقد دونا قبل كوسو عسومي سو قبل كياني ساعيارها قبل كوسو تبيان magacaygu waxa weeye Cabdishakuur Xaashi Barkhalle Ashkoori waxana ciyaartoy muddo far badan ku soo jiray ciyaaraha Somaliland ciyaaraha gobolka walow saaxiibkiisa Kariya oo sanadkii ugu horeeyay ciyaaraha gobolada haddana si un baan 97 98 99 wada bilano kubadda oo ilaa iyo hadda deewan wada ciyaarnaa sidoo sheegayna waxa weeye deewan challenge garana dhalinyaro aad nooga yaryar oo iyagu xilliga ay aan kubadda ku jirnay 2005 oo 2007 oo kale iyagu yaryara laakiin maanta aad iyo aad ku ugu fiicana ayaan challenge karnaa on ciirina waxaan aad u soo dhaweynay waxa weeye Somali Score oo iyagu team isku xilqaamay in application lagala soconayo ciyaaraha Somaliland iyo guud ahaan ciyaaraha caalamka oo dhan soo kordhiyay oo maanta magaalada Boorama in la joogo 5tii bishii labaad 2021 nagu soo booqday magaalada Boorama maalin Jimcaha nagu soo booqday oo rahantii u yimid isreebreebka kooxaha Serie B ee laga doonayo 8 kooxood ee xiriir ku soo qaban qaabiyeen oo maanta bilaamiyay iyadana la doonayay walow maanta ciyaartii ay baaqatay si toos ah ma live inuu soo tabiyaan si live score-kii caadi qofku wala soconayay ayuu kana wala soconaya cid kasto markaasi danaynaysa inay programkaasi isticmaasho way la soo deey kartaa Somali Score ku qorto Play Store-ka si toos oo la soo deey kartaa waan way ku ammaan yihiin aad iyo aad baan ugu ammaanaynaa waa wax fiican oo dadku soo kordhay halkaas lagala soconay ciyaartoyga information-kiisa oo dhameystiran inta uu garoon ku jiro walow ay soo wadaan programyo kale oo iyaguna oo council si xidho ciyaartoygiin history-giisa halka laga sii dhaxgali karo daadiisi lala socon karo intuu daadiisu tahay ciyaartoyda lala xidhi karo kooxaha magacaantoodii oo dhameystiran xaga laga xidhi karo aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa welcome baan leeyahay magaalada Boorama ku soo dhawaada waa magaaladiini kulay maanta uun maahay hadda ciyaarahan xaggaas aad kala soconaysaan oo ciyaaraha dambana waa nala joogaysaan baa aduu Ilaahay raado intaas ku soo koobi hadalkayga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh ugu horreyn ilaahay baa ku mahadinaynaa maanta maalin Jimcaha waa maalin khayr badan in salliga rasuulka la badiyo oo ajar badan baa lagu helaa maanta Jimcaha insha Allah halkan wax ka salaamayna maanta martino bahda ciyaaruhu weyn runtii Cabdi Fataax iyo Cabdi Qani iyo teamkan la socda Hargeysa nooga soo boqolay
oo iyagu ku soo kordhiyey dalkeennan Somaliland ku soo kordhiyey application ama app Somali Score la yiraahdo oo ciyaaraha lagala soconayo oo casriyeysan runtii xiriirkana way nala kulmeen xiriir ahaan way nala kulmeen aad baanan iskula qaadanay barnaamijkooda markaan aragnay fiicnidiisa iyo dadaalka ay wadaan runtii aad baan u soo dhaweynay intii horteedna iyaga isa soo saaray oo tartanada ka socda Burco iyo Laascaanood iyo meel walba tartankii soconayaba qayb bay ka yihiin runtii inay halkan ku ekaadaan ma rabaan insha Allah si caalami ah inay noqdaan aad baan ugu soo dhaweynaa gobolka maanta inkastoo ciyaar u yimaadeen ciyaartii isreebkii kooxaha heerka labaad oo maanta la bilaabi lahaa ay kooxi laakiin duruufo awoodeed u baaqatay ciyaartii baaqatay iyay horta u yimaadeen insha Allah barnaamijkaasina wuxuu ku jiraa sida dhalinyaradu sheegteen ciyaartooygan labada ciyaartooy oo caan ah oo Sakariye iyo Yashkuri oo runtii tusaale u ah dhalinyarta ciyaarta gobolka tusaale u ah in dhalinyaradu ay ka soo dejistaan application-kaas insha Allah iyaga ku farxi doona insha Allah markay arkaan barnaamijku sida uu yahay waxaan rajaynaynaa gobolkuna inuu saa ku wada qaato si ay ula socdaan qofkan garoonka joogin iyo aad u anfacaysaa ka jooga laftigiisa xogtu markuu ciyaartu dhamaato xogta helisteedii ayaa ku dhameystiran oo ciyaartooygii xogtiisii oo dhameystiran hadday dhererkiisii haddii da'diisii haddii intuu soo ciyaari jiray wixii oo dhan baa ku jiraya insha Allah waa arrin inagu cusub marka inamadan waan soo dhaweynaynaa maanta barti bay noo yihiin inkastoo marti ahayn oo ay magaaladoodii yimaadeen aniga ahaan waan soo dhaweynaynaa anuu xiriirka maanta Ilaahay baan kulmiyey waxaan u sheegnaa dadka un kaliya in barnaamijkaasi hadib nala jaan qaadi doono oo tartanada si rasmi ah insha Allah halka nagala socon doonaan aad baan u soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay imaadkooda bismillaahi raxmaani raxiim falillahi alxamdu haddaanu magaaladii Boorama soo gaadhnay annagoo isku duuban oo bahdii Somali Score waxaananu la kulannay oo aanu mahad celinaynaa gudoomiyaha horyaalada Somaliland mudane Samaroon iyo ciyaartooyadii hore gobolka Awdal Sakariye iyo Shukuri oo ayaguna si wanaagsan u soo dhaweeyay oo programka Somali Score si fiican oo la qaatay iyo waxtarkiisana si fiican u arkay iyo inuu ciyaaruhu u baahnaayeen in horumar noocan oo kala lagu sameeyo oo ay ciyaartooyada dambena ay fursad u heleen inay maanta iskala socon karaan live score iyadoo ciyaartii waqtiga ay soo dhacaysay iyo waqtigii ay live-ka ahayd iyo waqtigii ay dhamaatay intiiba ay dib u arki karaan taariikhna ay hadhow ku geli karaan oo oran karaan barigaasaan kooxda u ciyaari jiray iyo lambarkaasaan xidhan jiray intaasoo gool baan dhaliyay intaasoo kulan baan saftay waa horumar fiican oo sports card ku soo kordhinay dhalinyaradana waxaan ugu bushaareynaa inay markii horeysay tay Soomaali lagu soo kordhiyay geyga Soomaalida inuu yahay live score kan waxaan oran lahaa Play Store ku jira si fiican ula soo daga halkaana iskala socda asxaabtiina gaarsiiya aad iyo aad buu mahadsantiin Boorama ahaan bahda sharafta leh si fiican noo soo dhaweysay kolay waanu imika qayb aanu ka noqonay Boorama oo mar hadii ciyaartooyadii hore iyo maamulka xiriirkuba nagu soo dhaweeyeen ciyaaraha halkan aanu toos uga soo tabin doonaa wixii bari ka bilaabma waana nagala socon doontaa insha Allah. Assalaamu calaykum.